madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxa uu warbixin kaga dhageystay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka soo laabtay kormeer dhinaca hawada oo ay ku tageen deegaanada xeebaha gobolada Awdal, Salal iyo Saaxil oo ay ka deeyeen roobab dabaylo watay oo khasaare baaxad la geystay. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa kadib markii uu dhageystay warbixintaasi waxa uu madaxweyne ku-xigeenka ku wareejiyay deeqo kala duwan oo loogu talagalay dadka masiibadaasi ku waxyeelay taasi oo la saaray diyaarada helicopter oo ay ku deeqeen dalka Imaaraadka Carabtu looguna talagalay dad waxyeeladu soo gaadhay kadib markii uu madaxweynaha Soomaaliland xiriir la sameeyay wadanka Imaaraadka iyo wadamada kale ay Soomaaliland saaxiibka yihiin. Imaaraadka oo si degdeg ah uga soo jawaabay arrintaasi ayaa sidoo kale la filayaa in ay soo gaaraan dalka diyaarada sida macaawinooyin kala duwan kuna soo fool leeyihiin maalinta bariyaha Soomaaliland. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxa uu ka hadlay gurmadka diyaaradaha ee ka yimi wadanka Imaaraadka oo tilmaamay in madaxweynaha Soomaaliland codsi u gudbiyay arrintaasi ku saabsan isla markaana ay si degdeg ah uga soo jawaabeen. shirista jooga lagu jiray hay'adii wala mabalaaskariyay xukuumaddu waxay hayso way diyaarisay gurmadkii koowaad ee inuu yimid dibaddana waxay arkaysan kan soo la soo diray diyaarado dhulka go'doonsan cuntada gaarsiiya oo noo soo dirtay dawladda Imaaraadka Carabta ee saaxiibka nahay ilaa berina diyaarad kale laba imika halkan fadhiya berina laba kala imanaya insha Allah oo mid ay raashin sido madaxweynuhu halkan saaka soo galay wala socotaan magaalada maan gelin halka joog buuri wuxuu diyaariyay raashinkii la saarayeen laba diyaarado la saar lahaa marka dib baan u noqonaa imika intaydii ka timaday ee sharaso meesha gaadhay in dib aanu noqono oo labada meelood u daraa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo warbaahinta la hadlayay ayaa ka hadlay waxyaabihii uu ku soo arkay deegaanadaasi uu booqday. waxaan xeebta dheer baan raacnay waxaad arkaysaa dhulka inta laga bilaabay Djibouti ilaa iyo deegaanka xeebta ku dhalanay degmada Luqaya intaan dul marnay meel ka biyo yareeyay jirin biyo horta wax ku dhacay roob ay qeyr caadi ku dhacay doox iyo meel walba isku silmeen waxaan fadhigi koowaad fadhiisanay marka degmada Luqaya magaalada madaxda degmada Luqaya wax laga sheekeyn karin runtii oo aan saadaran karin ayaan ku soo aragnay magaalo dhan oo baabaaday oo hadduu aqal ahaad sandaqada iyo hadduu ku daaraha wuxuu dhamo dhul kala silmeen oo taawarkii ugu weynaa oo sababta isgaarsiinta loo waayahay oo inta meeshood aad garanaysan xeeba oo maarta dhul hoose ah taawur intuu la ka yaabtay gabiisa dhulka yaalo dadkii oo sare joogo oo meel waxay hooy haystaan ay jirin yaa halka u tagnay laakiin waxay nasiib wanaag noo sheegeen iyaga wax iyaga magaalada dhimasho inay ka dhicin waxaase dhibtay noqotay wixii xoolo agaarka magaalada yaallay ku noolaa iyo waxay agab haysteen iyo wixii maarta hooy ku noolayeen yaa burburay meeshan iyo deganaan ma oran kartid biyihii ku dhacay roobka ahaa waxay abuureen inay dhulkiiba gooyaan badii ay soo durkiyaan xoolo wixii ay lahaayeen oo isma weydiinayeen baday ay saa u dul sameeyeen dadkii oo marka gacmo marana caruurtii iyo dumarkii iyo halkaas ugu tagnay dabayshu waxay ku dhacday culeyskeedu halka Luqaya ka soo gashay badda iyo inta agaarka Luqaya tuulo ku dhow waxay ku dhufatay halka ay gargaar bariyo buurta ah inta kalena waxay la qabaan biyaha iyo roobka siyaad iyo meel walba ilaa Djibouti ilaa halka iyo Bulxaar ilaa iyo Berbera waxay la qabaan biyo xoolo wixii maanta Soomaaliland lahayd gobolada Awdal iyo Salal waxna daad baa qaaday waxna qaboway isku bedel qabow ku dhinteen inuu dhulku beeraha iyo in kalma lama garanayo waxa wixii la beeray iyo wuxuu dhan gabiyo ka baahay sida la sheegay ilaa iyo Baki oo garanaysa beerbiyooda saas dooxdu waa jareen maanta waxa Soomaaliland dhaqaalihii beeran waa saas oo beerbiyoodan u baabay xoolana saas u baabeeruntii. ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenku waxa uu ugu baaqay bulshada reer Soomaaliland ganacsatada iyo dadka wax haysta iyo hay'adaha kala duwan ee dalka ka hawlgala inay gacan ka geystaan taakulaynta ay dhibaatooyinkaasi soo gaareen. ummadda islaamka iyo ummadda reer Soomaaliland meel joogtaba inay hawsha gacan weyn ka soo geystaan ma ku baaqayaa waxa weeyaan maanta dadka cuntada waxa kaga daran
hoyga kaga daran ummadda caruurtii iyo dadka jilicsan ay haweenka iyo waxay fadhiyaan banaan bay fadhiyaan marka waxa loo baahan yahay gurmad degdega cid kastoo maanta ilaahay wax siiyay maartay nin jingad u qaada nin sibir u qaada nin wax ku meel gaar oo si qaado oo maartay dharkii iyo waxay huwanayeen iyo u qaada iyo cunto intaba